nin wiilkiisii magaca Donald Trump u bixiyay ayaa wadanka Afghanistan waxay ka dhalisay dood iyo waliba hadalhayn aad iyo aad u weyn. Cabdiraxmaan Badaan ayaa studio la fadhiya. Badaan haye waxa la yiri mawlido saaxib wax waliba bad bay kula galaan ninkan wiil baa u dhashay marka wadagto marka wiil dhashada waa lagu farxaa laakiin se farxadii waxay isu bedeshay in arintii cirkaas ula kacdo ninkan oo la yiraahdo magaciisa mawlido asadullah boya ayaa markii gabadhiisa u dhashay wiilkii saddexaad waxa u dhashay tuulo yar ku taala Afghanistan ayaa halkii wax kale laga filayay ayaa wiilkii waxa u bixiyay Donald Trump marka culimadii iyo xaafadii iyo dadkii iyo qoyskii iyo eheladii iyo qaraabadii baa isla kacay oo yiri war ma inta ilaahay magac muslim badiyad ninka u bixisay war ilayn tad oo kale haye markaas aad mawlido ogtahayna arrimahan waa arrimo soo noqnoqdo oo meelo badan oo caalamka islaamka ah dadkeena ogta Soomaalida xitaa waxaan xasuustaa magaalooyinka qaar hada tagto meel walba Soomaalidu degto wada aragtay waxaad arkaysaa magaalo loo bixiyay Fallujah ama Kandahar ama Bermuda marka dadku waxyaalaha ma aragtay kulba suuqa ku jiray ee hadalka dadka wadagta Usama bin Laden dad loo bixiyay dad wax loo bixiyay Saddam Hussein marka uu magacyada nimka waxaad moodaa in uu ninkan laftigiisuba malaa islaha kaftan ka dhigo laakiin mid baa ugu soo dhacay Cabdiraxmaan aan gale sax wadanka horta Afghanistan wax kasta ka jira sax bari waxaan ogeyn inaan yar ba wuxuu soo qaatay bac midabada blue leeyihiin iyo cadaan markaas wuxuu ku qortay Messi oo ciyaaryahanka reer Argentina Barcelona ciyaaray iyo lambarkii 10aad waxay gaartay in Messi intuu duulo uu qadar tago wiilkii loo keeno halkaas isku arkaan ninkan aan doonayo inuu Trump arkaba ninkan waxa laga yaabaa in waaba tamawlido dad badan aqalooda ku jirtay dadka qaar bay waxyaalo qaar waxay u sameeyaan ha laga sheego amaba ha laga maqlo laakiin Afghanistan oo kale marka joogto wadan aad u khatar badan hubkuna uu daadsan yahay mowqifkuna fog yahay kooxa kala fog aad u fognahay joogan inaad arrimaha faraha la gashaa oo aad caruurtaadii xaaskaagii baad bad galiso mala iyada laftigeeda waxay u baahan tahay inaad ka fiirsato marka imka sida aan qoraalka ku hayno wadiga arkay mawlido adiguba waxa dhacday in imka ninkaas iyo familigiisiba lagu khasbay in ay ka dhaqaaqaan oo ay maalinkan maanta gurigoodii reerkii dhama uu maanta u gabado sheekada markaad isha ku haysay waxaan u jeedaa xataa shahaadadii baa loo soo saaray oo ay ku qoran tahay magacii xataa dhalashadii shahaadadii dhalashada wanaga halkan ku aragno oo ka soo baxday dawladda Afghanistan oo sharciya oo lagu qoray Donald Trump marka dadku waxa ku noqotay wax la yaab marka ninkii gambasho galay dhuumasho galay reerkii oo dhanna waxay ka dhalisay